Dunidu waxay ku socotaa isbeddel xawaare leh oo ku salaysan tiknoolajiyad casri ah. Waxbarashadii hore ayaa haatan isu beddeshay qaab dhijitaal ah. Macluumaadkii muhiimka ahaa ayaa iminka laga heli karaa goob kasta. Dunidu waxaa lagu tilmaami karaa in ay noqotay tuulo yar. Haatan waxaa la joogaa waqtigii ruux kasta uu wax ka baran lahaa tiknoolajiyadda si uu ula jaanqaado dunidan casriga ah, isla mar ahaantaana uu ku dabaqo hadba waxay diintu farayso. Dadkaygaan la hadlayaa dulli weeye jahligoo deris ruuxuu la yahay darajo ma gaadho oo dib u socod buu noqdaa. Dunida aan ku noolnahay dadkii wada dhaqaaqiyo dayaxa dusheeniyo daruuraha la sahmshay daa'in nagama doorane dadaalkii aqoontiyo daraasaadka tiknoolajiga dariiqiisii bay heleen. Bal haddaba dadkaygow dugsigii aqoontoo duruustiisa loo bogaa deris kula ahaadee degdeg horay u gaadho diiwaangelintu hamoogaan. Haddaba kollejka MTTC waxaad ka helaysaa koorsooyin aad u muhiim ah oo ku saabsan kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo ku baxa qaab online ah. Ma doonaysaa casharro maqal iyo muuqaal oo tayadoodu sarreyso, buugaag PDF ah oo tiknoolajiyad ku dheehan tahay, iyo weliba la talin dhanka ICT-ga? Dhammaan waxaad ka helaysaa kollejka MTTC. Koorsooyinka asaasiga waxaad ku baran doontaa haddii alla idmo habka loogu shaqaysto kombiyuutarka qaab aad u fudud, sida fahamka kombiyuutarka, Windows-ka, noocyada kala duwan ee Office-ka, habka degdega ee qorista keyboard-ka, iyo weliba daabacaadda dukumiintiyada kala duwan. Sidoo kale kollejka waxaad ka helaysaa koorsooyin kale sida habaynta iyo qurxinta sawirrada, hagaajinta muuqaalada, xisaabinta ganacsiga, cilad bixinta kombiyuutarka haddii uu kaa xumaado, ilaalinta iyo fayadhowrka kombiyuutarka, samaynta naqshadaha boorarka ganacsiga, ID kaarada, iyo weliba koorsooyin kale. Sidoo kale MTTC Bookshop waa qayb aad ka heli karto buugaagta aanu soo saarno. Kollejka MTTC wuxuu qaadanayaa arday cusub. Isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan ha moogaan ee horay u gaar. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda.